maal xamar ayuu u socdaa salmo miyay isku aroosaya السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا سلامة ما أنا صحبتي دقالية ميل كسر جوكتي سود وهذا جنك دوس وشبراني قفك اللي هلا نقفك الوا مسكين كشبراني كاس كسر هذا مقال كله عصب ضيع عصبته ولا المعاني سود وجو سبسكرايب والله عقلان دا يوسي آديات أنت المقال كي يقول لك وحاربة ورت نقوم هاد عليا أصحابتي ودم بيس وصوب بيرتو حاجة ليه ولا سود وهذا آدي أدا وما ستين سيدا قروح البدن مركز أتنا كي وصوب بوقتين هدنا سبسكرايب يقول ساعتين أنت وهلا هيل كرم ما أهان قف ولا لا يهلا markaan waxa ay leeyahay aad ugu mahadsantihiin channelkan waa channelkiini meel kale meena imaan meena martubtiinayna imaan laakiin waxa imaadeen channelkiini rasmiga ahaa waana ka mahadcelinayaa runtii sida aad markaas ii soo booqateen oo haddana aad dhay igu siiseen subscribe-ka sidoo kale waxaan ka codsanayaa maadaama aad subscribe-ka saartay ina haddana aad saartay kambaleelkan aad furtid sababtoo ah kambaleelku wuxuu ka caawinayaa video kasta aan soo geliyo inuu ku soo gaaro laakiin haddii aad subscribe kaliya furatid markaas iyada aad gambaleelkana furanin waxaad arkaysaa video aan soo geliyo inuu dhowr cisho ka bacdi ku soo gaari doono laakiin haddii aad jeceshahay isla markaas video kasta aan soo geliyo inuu ku soo gaaro waxaan filayaa in markaas gambaleelka aad furtid sababtoo gambaleelka wuxuu ku soo gaarsiinayaa videogii isla daqiiqado ka bacdi waxaan leeyahay dhammaantiin intii u soo biirtay iyo intii hore ila joogtaba oo aan iskala soo bilowno meeshii aan bilowna waxaan igi leeyahay aad ugu mastiin dhamaantiin guys soo dhawaada muuqaal kale oo cusub runtii muuqaalka aan maanta igi wado xalato ayaa Instagram-kayga waxaan soo geliyay sawir aan markaas dhahayo geliya asxaab badan oo jecel in ay soo weydiiyaan su'aalo ayaa waxaan dhahay qofkii jecel inuu su'aal soo weydiiyo waad soo weydiin kartaa marka dad badan horta runtii su'aalo soo weydiiyeen su'aalahaas ayaan jeclaystay inaan YouTube-ka uga jawaabo maadaama aan markii hore sheegay inaan YouTube-ka ugu soo jawaabi doono marka runtii waxaan filayaa su'aalaha inay badan yihiin waqtigana uu aad ugu yar yahay waxaan fili doonaa insha Allah ta'ala inaan laba part kala sameyn doono caawa aan duubi doono part 1 habeen dambana ama habeen ku xiga insha Allah ta'ala aan part 2 soo sameyn doono marka su'aalahaas kultu inta ekraankayga waa ka jawaabi doonaa insha Allah ta'ala markaas la socod wanaagsan qofka ugu horeeya bal aan soo qabto Umar wuxuu dhahay barada Malaysia maxaa ugu wacan inay rag badan oo asxaab isku fiicnaa ah ay kala tagaan soo dhahay YouTuberada Malaysia asxaab badan oo isku fiicnaa inay kala tagaan barada horta hadii aan su'aashaada laba u kala dhigo kala taga mid safar aha mise waa mid la isku dhacay haddii ay safar noqoto runtii waxaan filayaa qof kasta qorshe ayuu leeyahay qof kastana wuxuu leeyahay maaragtay inuu qorshe meesha u joogo qorshiisa duu dhameystana waxaan filayaa inuu ka safray meeshan uu ka safraayo dad adduunkan siisa waxa waaye qof kasta hami ayuu leeyahay hamigaas ayuu jecel yahay inuu ka mara dhaliyo laakiin haddii ay su'aashaada tahay asxaab badan oo YouTubera ayaa kala tagay oo aan ka wadi micnaha inay tahay dagaal waxaan filayaa inaan su'aashaas aniga aan ka jawaabi karin sababtoo ah ma fahminba dadka aad ka hadlaysid asdheys waa istagaaleen taas horta ma fahansani waa mid koowaad talabaad hadda soo raacay leedahay hebel ma isku dagaaleen taasna ma soo qorin runtii wax istagaaleen ma ogi haddii ay tahay arintu safarna waxaan ku leeyahay brother qof kasta meeshan qorshe u imaaday qorshihiisuna maaragtay hadduu ka waayo qorshe siduu rabo u noqon waayo markaas iyada uu safar u sii aadaya oo meesha markaas isaga qorshihiisa ku samaysan karo ayuu aadaya laakiin haddii ay ka waday maxay u kala tageen oo dagaal ka dhaxeeya macnaha taas aniga ma fahansani mana ogi cid istagaashan kultaba igumada soo qorin meeshan laakiin waxaan jeclaan lahaa qofkii markaas aad dhaysid labada qof ee istagaashan oo markaas adiga niyadda ku jira inaad iyaga comment aan ugu qortid ama Instagram-kooda ama YouTube-ka aad u maastay su'aasha labaad haddaan soo laabano waxaa soo qoray Xamada safar badan jira adiga safarkaaga waa goorme ayaad safraysaa ayuu ka wada sida aan jeclahay dhammaan wada safreen YouTuberada dhammaan wada safreen adiga safarkaaga waa goorme amal brother aad u maastay Qasim aad u maastay su'aal fiican soo weydiisay aniga
safar iyo aniga runtii horta qorshe aan leeyahay qorshahaas ayaan meesha u imaaday ilaa hadda aan ku sugayaa insha allahu tacaala haddii ay noqoto inaan safrana dee markaas safarka ii soo baxana insha allahu tacaala waa safri doonaa asxaab badan youtuberaha way safreen waa sax waa runta waa sidaa ka dhawaajisay laakiin qof kastana qorshihiisa ayuu u safray anigu waxaan filayaa weli inaan markaas iyada uu bariiskii ka qoran yahay Malaysia qofkii safrayna meeshuu u safray bariiskiisu ka bisil yahay marka anigu weli Malaysia waxaan ugu dhibayna filaa insha allahu tacaala waan jeclaa markaas iyada inaan safar aado ama qorshihii aan u socday hadduu ii horgalo aan u baxo ama waddankayga hooyo aan ku laabto labadaa mid un laba horaan waa cawska jiilaan koltoo Malaysia waxaan ku nahay dad ajnabi ah oo markii aan meel istaagno la wadiina maxaa soo doontay oo waddankeeni ma aha laakiinse xaqiiqdu waxay tahay qof kasta inuu mowqif leeyahay anigana insha allahu tacaala dadkaas ay ka mid ahay koltoo mar dhowna insha allah waan rajeynayaa inaan meel un maaragtay yaa aan diyaaradeeda u duusho aada u maastay bartay barada meel qasan ayaa jirta lisoo galay da-deed maarta ina ogaatid aada iyo aad walaashii aada u maastay su-aal fiican aa weydiisay sida aad ii weydiisay meel qasan ayaa jirta waana su-aal ka mid a su-aalaha yani ku saabsan aniga markaas noloshayda oo aan markaas aan dhahay iisoo qora laakiin dad badan ayaa wax iisoo qorayaan sidaan u arkay su-aalo aniga aan quseynin okay hadda gabadhan camal ama waxa aniga aan rabay qofka bini'aadamka markuu ku dhaho maxaad jeceshahay inaad soo weydiin lahayd haddii aad adiga dad kale iyo wax aanan meesha oolin iyo qof kale aad tiraahdo dad hebel iyo hebel iyo hebel saas maxay u sameeyeen taas meesha ma taalo laakiin qofka yani shakhsiyadiisa ina xoojisay runtii aad u maastaa walaashii haddii aan da-deeda kuu sheegana kolta waxaad dhihi doontaa abti waa isweynaysay maxaad isku weynaysay laakiin dad badan waxay leeyihin waa isweynaysay anaa og waa isweynaysay maxaa ku dhacma okay da-deeda rasmiga waxa waaye 28 ha 28 sanadkan waxaan galay 28 aad iyo aad waxaan filayaa inaad su-aashaas jawaabteedana aa heshay idoo waafiya waana kaaga mahad celinaya sida quruxda badan aa markaas iisoo weydiisay laakiin dadka qaar waxay leeyihiin new 28 oo ka yartee maad iska sheegatay 17 camal laakiin aniga dee da-deeda rasmiga markasta waa sheegta aad iyo aad u maastiin su-aasha kale ku xigta usoo laabano erig wuxuu soo qoray goorme ayaad Malaysia imaaday Malaysia waxaan imaaday sanadkii 2017kii ayaan soo galay Malaysia bishu markay ahayd bishii 6aad taariikhduna ay ahayd 14 ayaa waxaa kusoo degtay elborkan Kuala Lumpur ilaa hadda sidii aan u joogaa ahaantii Malaysia waxaan u maleynayaa hadda inaan joogo muddo 4 sano ah haddii wax yar dhiban yihiin wax yar dhiban aan jeclahay intaas aan ku noolaa Malaysia waqtigaasaan imaaday markaan imaanayna ahaantii waxaan kasoo duulay ama aan ka imaaday magaalada Nairobi ee dalka Kenya saas way ha marka waxaan joogaa muddo 4 sano waxaan imaaday 2017kii aada u maastay brother sida quruxda badan aad su-aasha isoo weydiisay waxaan filayaa inaan kaaga jawaabay su-aasha kale mad aa soo qoray mad wiil miya gabar miya I don't know laakiin su-aashiisa aan bal fiirino wuxuu dhahay Kamaal xamar ayuu u socdaa Salma miyay isku aroosayaan ha haddaan ku dhaho iyo haddaan maya ku dhahaba arrintaas arrin aniga brother horta aan kaaga jawaabi karo ama aniga qusaysa ma ahan ahaantiina waxaa fiicnaan lahayd su-aashan haddaad qabtid inaad dadkaas walaaladii ah aada weydiisid maadaama aad rabtid iyaga inaad ka ogaatid yacni xaaladooda ama qorshaha ay leeyihiin ama iyaga inaad weydiin lahayd ayuu ku fiicnaan lahayd balse ani haddaa isoo weydiisay aniga waxaan ka ogahay ma jirto adi camal ayaan ka ahay ma fahantay adiga camal ayaan ka ahay marka aad iyo aad ayaan uga xumahay inaad isoo weydiisid qof kale shakhsiyadiisa iyo wuxuu qabsan rabo iyo meeshu u socdo iyo wuxuu ka qabsan rabo meeshaas taasna isaga ayaa muhiim ah inaad isaga weydiisid isaga markaas aad ka ogaatid laakiin aniga haddaan ku dhawo xataa saasaa jirta saas u baxo saasaa jirta yani waxba kama ogi muhiimadda xaqa aan kaala hadla ma fahantay marka waxaan jeclahay inaan kaaga jawaabo su-aashaas oo xataa ma is ugu habboonayn inaan kaaga jawaabo laakiin jawaabtaan ku siiye waxay ahayd inaad iyaga weydiisid ayay ku habboon tahay markaas waxaad ka helaysaa jawaabta rasmiga waan kaaga mahad celinaya aada iyo aad sel wuxuu soo qoray sidoo kale gabar miya wiil miya ay toono freestyle ugu qoran maxaad u qabanaysaa shacabkaaga ku taageero aada u maastay brother horta shacabka taageero ma ahan waa asxaab igu xiran aniga waaye
asxaabtaydu dad taageer ma waa asxaab aan walaalanahay waa dad ku walaaloonay social media waa dad meeshaas aan iska jecelnahay oo qalbi wanaagsan oo aad iyo aad ugu xiran dadkaasna waa dad isoo booqday oo markaas janaalkay ku xiran oo asxaabtayda run ahaantii meesha aan hadda joogo iga ay keenay meesha aan u socdana iga ay geyn doono insha Allah taala markastana waa u mahad celiyaa run ahaantii qof kasto igu soo biiray waxaan aad iyo aad ugu maastahay sida markaas ay igu soo biirtay oo haddana aad janaalkay igu soo booqatay markastana waa u mahad celiyaa laakiin waxaa sii jirta maxaad u qaban lahayd run ahaantii waxaan rajeynayaa hadafka ama YouTube-ka aan ka leeyahay wax yara iga dhawan insha Allah taala waxaan filaa si dhaqsi ah inaan ku gaari doono waxaan i gaarsiin doono isla asxaabtayda waqtigaas iyada markii aan gaarana kolto markaas ayaan rabaa inaan waxa aan markaas soo gudbinayo aan u soo gudbinayo laakiin inta badan asxaabta igu xiran meelo badan ay kala joogaan laakiin oo aan hadda aan isku madhowin laakiin waxa aan sameeyaa waxay tahay oo markaas aan igu qabtaa inaan markasta aan u mahad celiyo maadaama ay yihiin dad walaaladee ah dad asxaabtayda dad igu xiran su'aalaha aad u badan yihiin waqtigan aad ugu yar yahay waxaan filayaa intaasna kusoo gabagabeeyo insha Allah taala waxaan sameyn doonaa barnaamij kale part 2 insha Allah taala isla habeen dambe inaan dhameystiran raba insha Allah taala sababtoo almost hadda waqtiga uu yar yahay waa 5 saac oo habeenimo waxaan rabaa inaan video soo edit gareeyo hadda soo post gareeyo waqti fiican aan igi soo geliyo insha Allah taala marka intaas ay kusoo gabagabeynaya muuqaalkaygan aaw haddii aad ka heshay like ta isaar subscribe na dheh haddii aadan ka helin ruuxaanta waa kaa raali gelinaya